raalli ahaada waxaan filayaa signalkii ayaa yara tegay marka waan ka cudur daaranayaa marka meeshii ayaan kasii wadaynaa insha allah marka aad ayaad u mahadsantihiin intiina la joogtay waana signalkii ayaa isagoo isugu joogay marka maasha allah raalli ahaada marka iimaanka haddii aan kusoo laabto waan ka cudur daaranayaa signalkii ayaa ka baxay marka share garaya fadlan waa mahadsantihiin signalkii hal mar iska baxay oo wirelesska ahaa marka waxaan ka wadaa iimaanka maaha kan cuntada lagu cuno iimaanka waa kan qofka bani aadamka ah oo arkaanta islaamka uu ka mid yahay iimaanka qofka la siiyo waxaa la yidhahdaa qofka bani aadamka ee muslimka qof ma dilo ilaa iimaanka laga qaado marka ilaahay horta waxaan ka baryaynaa in uusan iimaanka naga qaadin dadkan mooshinka waxaan soo wadaa waxay u egyihiin dad iimaankii ka tegay marka analogiga haddii aan kusoo laabto waxaa loo dhigi karaa oo qofka muslimka ee aqliga lagu siin karaa waxay tahay inuu yahay in la yidhaahdo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam maxamed bin cabdullaahi wuxuu ku geeriyooday isagoo 63 sano jira marka xildhibaankii videogii hore aan ka hadalnay wuxuu ahaa in uu jiraba 50 sano marka haddii aan nasiib aad leedahay soomaalidana waxaa la ogyahay oo la sheegaa life expectancy-gooda ama noloshooda waxay u dhaxaysaa la yidhahdaa 55 ilaa 65 anaga muslim ayaan nahay ilaahay ayaa waqtigaaga og laakiin haddii loo fiiriyo caafimaadka meesha ku nooshahay daayetkaaga waxaasoo dhan iyo cudurada nagu dhaca oo dhaxalka haddii loo fiiriyo marka haddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam 63 sano uu ilaahay maaragtay nafsadii uu ka ceshtay adiga oo ku abtirsanaya oo dhankiisa ka socda mar walba oo le waxaan ahay muslim oo maaragtay wanaagii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaan mar walba ku abtirsanaya aad leedahay waxaa ku hor 13 sano haddii nasiib aad leedahay nasiib haddii aad leedahay oo shil kale aan kugu dhicin noloshaada waxaaba ku harto markaas marka analogigaasaan soo qaadina marka haddii lagu yidhaahdo waddankaagii dhac maaragtay waddankaagii dhac oo lagu soo dalbado oo dibadda lagaa soo dalbado waddanka waa inaan dhacdaa lagu yidhaahdo bal waxaad keenaysa bal sheegay marka maalin bay kaa daba imaanaysaa oo waxaad fadhinaysaa marka ilaahay hadduu ku ruyay sariirtaada lagugu yimaada waxaa lagu leeyahay haye maxaa samaysa waddanka kusoo samaysa yaa ku xasuusta marka xildhibaanada ma la xasuusanaya maya marar badan ayaan sheegay hadda dadkii dadka waddanka ku leyn jiray waxay doonaan ha ahaadaan qabiil walbaa waddanka dad wax ku laayay yaa xasuusta qof xasuusta male si xun ayay u dhinteen qof xasuustana male laakiin dadkii waddanka usoo halgamay ee magaca kaga tegay ma la xasuusta ilaa maanta la xasuustaa generaaladii ha ahaadaan ciidamada ha ahaadaan kasoo bilaabo axmed gurey qof walba waa yaqaanaa sayid maxamed cabdulla xasan generaal daa'uud generaaladii kale sheekh xasan dadkii oo dhan oo soomaaliya dadkaas maxaa lagu xasuustaa ma dad bay xasuuqi jireen tabcan ma xasuuqi jireen laakiin dadkii dadka xasuuqi jiray ee dhibaatada u keeni jiray lama xasuusto haddii la xasuusana waxaa lagu xasuustaa in hadda haddii hal magacaan idin sheego ma doonayo magac qof dhintay inaan sheego haddii hal magac qof idin sheego qalbigiina waxaa kusoo dhacaya bisinka ninkaas hadda kahor waxaas meeshaas ku sameeyey ninka kugu dhow ayaa wuxuu ku leeyahay ninkaas dembigiisa iga dhaaf ayuu ku leeyahay waxaas dadka ku sameeyey marka sheekada intaanan ku dheeraan xildhibaanadan mooshinka ka soo wada nairobi iyo oo lacagaha dibadda laga soo siiyey oo rabaan in ay ridaan dowladda khayre waxay waddanka u horseedayaan dagaal sokeeye oo keliya ma ahan waddanka soomaaliya waxay saameyn ku yeelanaysaa dhammaan waddamada geeska africa oo haddaba ay ku yeelatay marka dabka siduu ku bilowdo aad ayay u fududahay laakiin sida lagu damiyo way adag tahay qof walbana waa ka dherigsan yahay hadda maxaa dhacay arrimihii carabta ka dhacay waxay isla markii saameyn ku yeelatay waddanka aan walaalaha nahay ee dariska aan nahay ee jabuuti ayay saameyn ku yeelatay waayo eritrea iyo iyaga xuduudkii ay ciidamada qatar ee 600 ahaa ay fadhiyeen markay kasoo tageen eritrea dhulay ka qabsay jabuuti oo anaga mar walba haddii aan nahay soomaali dadka walaalahana jabuuti inaan gacan ku siinaa oo aan ku taageernaa wax walbo waayo qofka jabuutiyaanka ee jabuuti jooga waa qof soomaali ah waa dadka xilligay naga xumeyd waa waddanka keliya ee adduunka ku yaala garab nagu siiyey xilligay naga xumeyd marka jabuuti dadka soomaalida mar walba waa inay gacan siiyaan wax walba ay la kulmaan marka haddii sheekada ay jabuuti saas uga bilaabatay saas ay tahay ka waran meelaha kale ay gaari karto meelaha nabadda ay gaari karta ka waran waxay gaari kartaa hadda yeman waxaa ka jira waad aragteen
yeman hadday kasoo bilaabatay meeshan oo halkan hoose oo jabuuti iyo eritrea isku bilaabeen haddii oo ethiopia iyo kenya iyo dhulkan kale ay ku fido marka fidnadaas yaa raba qof hadda oo bariga africa ama east africa ku nool ee fidna doonay ma jiro marka fidnadaas dii la yidhahdo haddii gadaal loo eego oo la yidhahdo halkay ka bilaabatay waxay ka bilaabanaysaa 200 xildhibaan oo dhuuntan ay usoo talisay oo nairobi kusoo jiray oo yiri wixii aanu gacanta ku haysan jirnay ee privilege-ka ahaa nolosheeni fiicnayd ee dowladdii hore ama tii kasii horeysay ama tii kasii horeysay aan ku jirnay waan la'nahay marka dowladdan khayri aan ku kicino emotion ay yidhaahdaan iyaga ayaa ka mas-uul ah marka dagaalka suu ku bilowdana aad ayay u fududahay marka shacabka soomaaliyeed meel walba aad joogtaan waxaan idinka codsanayaa videogii hore in aad maaragtay sii eegtaan oo aad sii qaybisaan youtube-na aad gelisaan fasax ayaad u tihiin laakiin titleka aan laga bedelin titleka uu ahaada title wanaagsan oo aan qabiil iyo xisbi iyo waxba aan ku salaysnayn marka shacabka soomaaliyeed bilahan soo socda insha allah waxaa bilaabanaya bishii luulyo oo ah maalintii qaranka calanka soomaaliyeed 1 luulyo ilaa iyo bishii September laga gaaro indhahooda waa inay furaan wadanka waxaa lagu soo qaadayaa weerar aad u weyn weerar ma ahan qof xabadda ku soo qaadaya weerar halis ka sii ah ayaa kusoo socda wadanka qofka markuu qori uu ku wato uu kugu soo socdo waa iska ilaalin kartaa laakiin dadka adiga aad aamintay oo aad ku aamintay wadankii iyo calankii iyo dastuurkii iyo qaranka aad ku aamintay hadday hunguri inta la soo siiyey ay doonayaan wadankii Soomaaliya inay motion ka furaan oo maaragtay afgambi ay sameeyaan wadanka wuxuu halis ugu jiraa in dagaal sokeeyo uu ka dhaco sababtoo dadka nabadda arkay dadka iskuulada jaamacadaha samaystay dadka nolol samaystay dadka qoyskooda u soo guuriyay waa Soomaali ka yeeli maayaan Soomaali kale in ay gumaystaan waxaa loo qaataa Ethiopian ama wadamadan kale Kenya inay ku gumaysanayaan markaas lagu qaataa inta nin Soomaali ah walaalka ku gumaysan lahaa marka ilaa wabina gumaysteen wadankeena waqtiga doonaan way soo galaan waqtiga doonaan way ka baxaan waqtiga dadkay doonaan ku dilaan qofkii doonaan ku gumaadaan marka waxaa lagu qaataa in uu ku gumaysay ayaa lagu qaataa baalka inta Soomaali kale ku gumaysan lahaa marka dadkii xildhibaanada ahaa ee la yiri waxa idinku aaminay sirta iyo dastuurka qaranka ayaan ku aaminay haddii maanta ay yiraahdeen waxaanu ridaynaa dowladda khayr ayaanu ridaynaa halis ayaanu ku sugannahay horta ilaahay wadanka dib uma keeno dhib halahan ayaa ugu filan waad aragteen maalin dad ayaa la diray dhib halahan ayaa ugu filan ilaahay wadanka dib uma keeno laakiin shacabka Soomaaliyeed sidii oo dowladda Turkiga dadka Turkida ah ay sameeyeen 15 luulyo kala hadaysan sameeynin halisan ku jirna waad aragteen Erdogan ma soo celinin ciidamo ama dibadda laga soo celin waxa soo celiyay shacabkii marka shacabku waxa la doonayaa inay banaanbax ku sameeyaan nabadda oo meel walba ay xiraan meel walba hatta airport-kuna aysan ka soo degin loo ogolaan wadanka ku soo laabtaan loo ogolyahay wadanka ku soo laabtaan haddii ay la yimaadaan sharci maanta hadday wax isku hayaan qof iyaga ka mid ah soo dirsadaan warbaahinta hala soo fadhiiso dadka Soomaalida ay wax garadka hala fadhiiso ha yiraahdaan waxaan motionka ku soo wadnaa hebel iyo hebel sidaan iyo sidaan laakiin dowlad goboleedkii lacag ayaana loo diiday dowlad goboleedkii waxaan loo diiday in maaragtay viisooyinka oo dibadda loo qaato hadda ninkan aan xildhibaanka aan isla hadalnay dad ay waxay ku andacoonayeen waxaan codsanay 10 viiso oo Mareykanka ah dowladdu waa noo diiday saas oo weeyda ma dowlad ayaa bixin karta viisa Mareykan ah viisihi Mareykanka iyo waxa la is ag dhigay qaranka Soomaaliya halista ay la gelin karaya la is ag dhigay qof ayaa wuxuu ku andacoonaya xildhibaana anigu waxaan sheeganayaa in dowladda aan ridayo sababtoo ah 10 viisa oo Mareykan ayaa iyagaba way ku baxaan iyagaba way ku sameeyeen dadkaas ayaa raba inay xukumaan balka waran marka dowladdu waa shacabka ma ahan khayr iyo farmaajo iyo ma ahan iyo wasiiradooda ma ahan waa shacabka Soomaaliyeed waa shacabka Soomaaliyeed waxaysan rabin cid kala dhicin karta male marka dadkan ama isu qabiil ahaada ama habar kuule isla ahaada waxa doontaan isla ahaada waxa muhiim ah dadkan waxay u soo socdaan burburinta qaranka Soomaaliyeed ay u soo socdaan marka dowladda ma in lagu taageeraa wax walba ay sameeyso xumaan iyo wanaag ma lagu taageeraa maya taas waa xaraan qofku yiraahdo ka yeeli ana ku dhihi maayo mana aaminsan waxaas aniga waxaan aaminsanahay in wadankeena Soomaaliya anoo qof Soomaali anoo qof dhalad ah Soomaaliya dhiigayga 100% u Soomaali yahay waxaan aaminsanahay wadanka ayaan aaminsanahay
dowlad ma ahan sheekada dowladdaada taageer waa taageerid marka dowladdu imisay jiraysaa waxay jiraysaa hataa ugu badan 8 sano haddiiba waqtiga la helaba laakiin waddanka soomaaliya wuu sii jirayaa qof maaragtay xasuusanaya male madaxweynihii hore hadda Mr. Xasan Sheekh qof xasuusta male wuxuu ahaa ex president uu ahaa baarlamaanka isugu jira nolosha isugu jira kii ka sii horeeyay Sheekh Shariif saasoo kale waxa ka sii horeeyay Ilaahay naxariis Cabdullaahi Yuusuf marka laakiin waddanka Soomaaliya la ilaawi maayo saa awgeed waxaa la doonayaa dhalinyarada intooda badan ee jecel waddanka iyo shacabka in ay ka hor yimaadaan in dowladdan Soomaaliya oo aan waxba lagu hayn aniga maxkamaddii soo saar ila soo fadhiiso ila tuug baa tahay wax baad xaday caddeyn ayaa taala bangiyadii wixii aad lacagta ku kala dabirtay dheh ila imaw motion isaar xir xataa hadaad doontid laakiin aniga kaa yeeli maayo niyaho motion ayaan ku saaraya maxaad igu saaraysaa iska dhaaf ma soconayso qof ka xoog weyna ma jiro adduunkan laakiin iska hadal iyo qooq iyo qaaqi waxba yeeli mayso dowladda loogama soo horjeedo ra'iisul wasaaraha qabiil hebel ka dhashay madaxweyne qabiil hebel ka dhashay loogama soo horjeedo dowladdu waxa lagu soo horjeedaa haddii masuq samayso dadka intooda badan waxay yiraahdaan dowladdii hore waagay jirtay lagama hadli jirin ma aragtay maxaa hadda dadka intooda badan ay u hadlayaan dowladda u taageerayaan طبعا waqtiga ayaa kala duwan qaabka dowladdan cusub loo soo doortay qof walba waa kala dhagsan waa ogyahay dadka Soomaalida qabiil walba dowladdan qabiil kuma imaanin dowladdan waxay ku imaatay Soomaalinimo iyo rajo aad u weyn oo dadkii intooda badan shacabka iyo dhalinyarada ayay ku timid dowladdan awgeed dad badan oo ani xataa aan ka mid ahay oo siyaasad u arki jiray inay wax wasaq tahay xoogaa waxaan istiri fursad qaali ah ayaa waddanka inuu ku jiraa bal aan ka wada faa'iidaysano waxaana muhiima dowladdan Khayre iyo Farmaajo hadda jirta haddii si sharci darro ah lagu rido ama arbushaad lagu sameeyo Soomaaliya aniga waxay ra'yahaan ila tahay in dowlad dambe iyo nabad dambe oo lagu kifaaxo aan laga heli doonin qofkii isla dowladdan hadda joogta dhaanta oo ma aragtay waxyaabihii ay qabteen 4 bilood berri waxay u tahay 23 Febraayo ayaa la doortay ra'iisul wasaaraha 4 bilood waxay u tahay berri oo jimco ay tahay oo Ramadaan 20 ay tahay markii haddii ay yiraahdaan waxba ma uusan qaban ra'iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa ma jira waxyaalo yar yar oo dhacay laakiin adduunku waxa la xisaabaa percentage wax la yiraahdo boqolkiiba ayaa la xisaabaa laakiin haddii 50 iyo 50 ay noqoto ra'iisul wasaaraha waa in uu ka dhaqaajiyo ama isbedel uu sameeyaa laakiin aniga waxaan dhihi karaa waa 20 wixii laga rabay ma sameyn 80 waa sameeyay wixii laga rabay marka dowladda Khayreena kuma shaqeyso social media iyo Facebook kuma shaqeyso wax alla waxay sameeyaan banaanka ma soo dhigaan waxyaalo waxa jira dowladda sir ay u tahay waxyaalo waxa jira dadka loo soo bandhigi karo hadda ayaamahan dambe waxaa laga hadlay waxyaalo fake news ayaa laga hadlay oo marar badan aan ka hadalnay aan soo dhignay waxaa la yiri heblaay waxaa la siiyey intaasoo milyan ayaa la siiyey madaxweynaha oo diiday intuu ka dhacay waxyaalo iska fake news ahaan in xataa ma mudnayn in laga hadlo xataa ma mudnayn from day one source oo wariyanimada oo la isticmaalo hadda ereygii wariya wuxuu iska noqday ma aragtay wax oo runtii fool xun ayuu iska noqday oo Facebook waxaan laga maqlaa ayaamahan wariye hebel marka hadda waa laga xishoodaa wuxuu noqday sidii xildhibaan hebel ama professor hebel ama doctor hebel ayuu noqday marka waxyaalahan fake news oo iska dhacay saan ayaa la sameeyay intay ka dhacday heblo saan loo sameeyay waxba kama jiraan adduunka soo ma shaqeeyo adduunka diplomatic iyo protocol iyo sir iyo waxyaalaha ku shaqeeya dowladda waxay sameeyso 20% inta kale dowladda sir u tahay oo iyada haysata laakiin nin dowladda ka socda adduun inta soo istaaga Facebook u yiraahdo saanay ahayd waxay noqonaysaa 10 like in loo saaro ma sha Allah loo qoro oo shaqada ku dhamaatay adduunka soo ma shaqeeyo adduunka wuxuu u shaqeeyaa oo ku shaqeeyaa qaab ah in dowladda ay leedahay system iyo qaab ay ku shaqeyso dadkana ay maartay ay arkaan dowladda waxay qabanayso waa tii aan ka hadalnay oo lagu mashquulay leeyahay madaxweynaha waa dhoofa safar uu aada halkan ka dhaca balaayo ka dhaca iyadoo wax substance ah oo la taaban karo aan la imaanin madaxweynaha ha dhoofa maalin walba madaxweynaha hadduu holiday rabo dalxiis uu aadi lahaa mar hore laakiin adduunkaas uma shaqeeyo marka muhiimadda waxay tahay waxaan ka codsanayaa inaad sii qaybisaan videogii hore dhexda ayuu ka go'ay
marka inaad si share garaysaan ama qaybisaan ayaan ka codsanaya marka baarlamaanka wuxuu soo laabanayaa sessionka oo xilliga fasaxyada markay dhamaadaan iid kadib ayuu soo laabanayaa shaqadoodii way bilaabeen dadkan motionka soo wada shaqadii way bilaabeen way socotaa aniga waxaan idin hayaa qof aan saaxiib nahay laakiin dhooni ah oo xildhibaan ah ayaa maalin walba ii soo warramasay wax u jiraan oo runtii aan ka xumahay waa qof fiican ayuu ahaa laakiin isbeddel ayaa ku dhacay ma doonay magaciisa inaan sheego isbeddel aad weyn ayaa ku dhacay wuxuu yiri waa laga awood weynaaday ayuu yiri haddii aan ka hor imaado meesha ayaa laga saaraya wuxuu sheegayo waxay tahay in lacaga badan dibadda ay ka yimaadeen oo la doonayo dowladda Soomaaliya si sharciyeysan oo sharci ah in lagu inqilaabo inqilaabka ayaa kala inqilaabka waxaa jira mid la yiraahdo inqilaab oo qori caaradiisa ah ama bloodless ah sidii kacaankii oo kale iyo mid waxaa jira in sharciga la soo maro oo sida lagu yiraahdo Mareykanka oo hadda ay ku socdo Donald Trump impeachment waxa la yiraahdo ama laga daba imaado ay noqoto marka saas maahan kan wuxuu ku socdaa inqilaab sharciyeysan kaasna waa halis iyadoo waxba loo soo bandhigin shacabka Soomaaliyeed haddii la sameeyo inqilaab sharciyeysan wadanka ilaahay ha ka haye wuxuu halis ugu jiraa in uu dagaal sokeeyo u bilowdo dagaal sokeeyo ku bilowdana aday u fududahay qof Soomaali ah oo aqli leh oo garaad leh oo ilaahay maskaxdiisa uu siiyay ka shaqaysiya ma doonaya maanta wadanka inuu dagaal sokeeyo ka dhaco maya we have enough halahana soo maray ee inta dhimatay ayaa ku filan maanta inta qofood ee Soomaaliya dhimatay ayaa ku filan lama xasuusto dadka dhintay qof xasuusta male dadkii ardaydii la laayay dadkii dhintay qof xasuusta male maanta laakiin dadkan waxay wataan haddaan laga hortegin wixii hore waxaan ku shalayn doonaa oo dhihi doonaa ilaahu ma nooc 2000 ka fiicneed hadii kana sababtoo ah nabadan yare hadda la helay sanadadan ugu dambeysay nabadan lama helin kaliya maalintii qeyr iyo farmaajo la doortay lama helin by the way nabadan waxay bilaabatay Sheekh Shariif ay ka soo bilaabatay inta badan Xasan Sheekh shaqo fiican uu soo qabtay inkastoo dadka intooda badan ay ra'yi kala ka haystaan laakiin nabadan hadda la haysto waxay noqonaysaa ilaahay hadduu noo celin lahaa sanadkaas ay noqonaysaa haddii dadkan waxa ay wataan ay la yimaadaan Soomaalidu waxay ku maamaadaa abaar way baxaysaa ceeb ayaa daran abaartu way baxaysaa laakiin ceebta ayaa ka daran haddii dadkan arrimaha ay wataan laga yeelo oo sharci darrada ay ku socdaan laga yeelo wadanka wuxuu halis ugu jiraa tan ma ahan kaftana ma ahan it's not joke wadanka wuxuu halis ugu jiraa in dagaal sokeeyo uu galo ayuu halis ugu jiraa waxaana ka mas'uul ah shacabka Soomaaliya ka mas'uul ah waxa ka mas'uul ah xildhibaanadan oo magacyadooda meel walba in la dhigo ay ku fiican tahay hadda haddii aqabiil ku taageeraysid waa yalkada ku jirtaa aniga ilaahu mu ahaado adeerkay ama abtigay ama eedaday ma ahaato ku taageeri maayo waxaan ugu taageeraynin waxaan u jeedaa wax ka sii weyn oo la yiraahdo Soomaali wax la yiraahdo iyo calankii iyo wadankii iyo nabadda ayaan u sii jeedaa marka muxuu ii tirayaa adeerkay waxa laga yaabaa dhowr sano kadib hadii waqtigiisu imaado inuu dhimanayo ama eedaday marka Soomaali ma dhimanaysa maya marka dadkan waxay ku soo socdaan wixii ay rabeen aan ku soo celiyay kan xildhibaankan ila soo hadlay wuxuu yiri dadkan wixii ay rabeen ayay waayeen ayuu yiri maxay waayeen privilege ayay waayeen waxay waayeen lacagihii iska haysan jireen baasaboorka diblomaatiga ah casa ayay waayeen waxay waayeen wax walba oo ay haysan jireen ayay waayeen waxay yiraahdeen waa inaan ka hor imaanaa dawladda waa la xisaabtan dawladda for God's sake yaa ku diiday dawladda la xisaabtanta dawladda waa in la xisaabtama dawladda lagama yeelayo mar walba aan ku soo celiyo blank check waxa la yiraahdo luqadda Ingiriiska check lacagta la isugu qoro hadii aan waxba ku qorin oo aan saxiixin aan ku siiyo 1 milyan ay ku qoran kartaa waad qaadan kartaa adoo aan ku siin lahaa $100 marka dawladda in la siimaa blank check in la siimaa dawladda waa in la xisaabtama la yiraahdaa waxaan maxaad u qabateen hatta ha joogan yaa loo xisaabin 4 bilood ha joogan 1 sano 2 sano 3 sano laakiin dawladda hadii laga filayo in dhibaato walba oo Soomaaliya haday ahaan lahayd argagixisada haday aan lahayd dilalka haday aan lahayd gaajada roob la'aanta dawladda inay ka mas'uul tahay waxba aan ka qabanin hadii we are kidding ourselves aqli ma hantaas adduunka aqli ayaa lagu shaqaystaa laakiin hadii la yiraahdo dawladdan waxa lagu arkay in hantidii qaranka ay dhacday ama musuqmaasuq ay ku socoto ama qof dilay la yiraahdo in adeerkiisa wasiir ah ama ma aragtay la siiyo xil la siiyo qof aan u qalmin inkastoo nasiib xumo ay dad badan aan xil u qalmin dawladda ay siisay
haddana dowladda sidaa keliya laguma eedi karo. dowladda waxaa lagu eedayaa wax cad inay loola yimaado oo la yiraahdo dowladda Soomaaliya waxaan ku aragnay in ay musuqmaasuq weyn ay samaysay. motionka dastuurka ku jira, by the way, motionka ma soo horjeedna annaga dadka wanaagga waddanka jecel, sababtoo qof hadduu ku leeyahay waryaal isdagaalin, waryaal dhibaato dhicin, waddanka ha loo shaqeeyo, waddanka wanaag uu ka shaqeynaya. marka motionka lagama soo horjeedo, motionka dastuurka ayuu ku jira, waa loo baahan yahay. laakiin motionkan oo ma aragtay been abuurka ah ee aan waxba ka jirin ee ka dambeeyaan dowladaha Soomaali waxyaabaha qaarkood ay ka diideen, kaas motion ma ahan. waddanku waa la isu keenayaa. ninkan xildhibaanka ah wuxuu igu yiri dowlado waxaa ku jira oo Soomaaliya xoogaa isfahmi waayeen oo la yiri sida kaliya adduunkana weligeed way ka dhici jirtay. haddii dowladda oo saaxiib fiican aan kula ahayn oo sidii la rabay laga waayo, waxay samayn jireen inay mucaarad ama ay geeyaan maxaa la yidhahdaa waddankooda ay ku maamulaan si ay u khasaan. marka dowlada ayaanan ka helin, dowladda Khayre iyo Farmaajo kama helin. waxay u marayaan inay ma aragtay gacanta ka dhunkanayaan, gacan ka dhunkashada ayaa laga waayay. waxaa la yidhi dadkan xaalkooda ma bogin, waxaa laga yaabaa meelo kale in la saftaan, marka bal intaan ka marnaa. dadaa loo wacay, waddamo qaarkood ay tageen la ogyahay, waxaa la yidhi haye lacag waatan, shaqada noo bilaaba. marka haddii shacabkii Soomaaliyeed dhibaato meesha ay ka soo gaarto, waddankaas kale wuxuu ku leeyahay anaga shaqo kuma lihin. mar walba way inkiraan. adduunka protocolka diblomaasiga wuxuu u shaqeeyaa waa la inkiraa wax walba. qofka haddii la yidhahdo waxaas adoo qof tuug ah intuu wax xaday $100 xaday oo gacan isku hayo la yiraahdo protocolka oo dadka diblomaasiyadda wuxuu shaqeeyaa wuxuu leeyahay war $100 maadaa xaday mayu leeyahay $100 anoo socda soo biibay gacantayga dhacdo uu leeyahay. marka qaabkaas ayuu diblomaasigu u shaqeeyaa. mar walba way inkiraan. laakiin waxaa la doonayaa in xildhibaanadan hadda Nairobi iyo meelahan kale ku shiraya oo maaragtay ilaahay uu og yahay waddanka waxay ku soo wadaan halis ay ku soo wadaan. marka sheekada ma ahan Farmaajo, sheekada ma ahan Khayre, Jawaari, ma ahan aqalka sare, ma ahan raggan labada aqal ee ka socda ee isbahaystay. waxaa ku jira rag Soomaaliya aad looga yaqaano ayaa ku jira. ma doonayo magacooda inaan sheego, waayo waxaa laga yaabaa in ay maaragtay ilaahay qalbigooda uu bedelo oo hadday video ay daawadaan dhalinyarada ay soo geliyaan, ama videogan aan soo gelin ay daawadaan ay qalbigooda yiraahdaan you know what, uma qalanto in arrimahan aan sameyno yiraahdaan. marka magacooda looma baa, laakiin qof walba waa og yahay, qofka madaxda waa la og yahay. Mr. Motion si fiican ayaa loo kasayaa, wax kale ma ahan. motionkana waxaa la doonayaa laba af in wax lagu cuno. afkii ahaa dibadda iyo cadowga Soomaaliyeed lacagtay soo bixiyeen in wax lagu cuno, iyo dhankana la yiraahdo dowladda sidii awalba ay jiri jirtay la yiraahdo intaasoo $1,000 bixiya si motionka la isaga hor yimaado in laga dul shaqaysto. marka meesha maxaa ku baaba'aya? shacabka Soomaaliyeed ayaa ku baaba'aya. marka maxaa loo baahan yahay? shacabkeena Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay inaan banaanbixii reer Turkiya ay sameeyeen oo kale markii Erdogan lagu sameeyey, afgembiga lagu sameeyey, inaan sameyno. xildhibaanadan haddaysan la imaanin wax sharci ah oo la taaban karo oo dowladda ay maaragtay ay ku eedayaan oo cad, in laga soo horjeesto. waayo waddankii ayay halis ugu yihiin. waxaa loo qaataa in dadkaas waddanka aysan soo gelin inta ay dhiman lahaayeen 20,000 ama 100,000 oo Soomaali ay dhiman lahaayeen. laakiin haddii ay wax cad ay la yimaadaan oo documenti ah oo xaqiiqda u dhow, ama bank oo lacag lagu kala xaday ama qaran la xaday, xildhibaanada ha lagu taageero. dowladda Khayre iyo dowladda Farmaajona marka waxaan leenahay mac salaama. xaflada loo sameeyo la yiraahdo ha loo heeso la yiraahdo ayna dhaafa la yiraahdo. laakiin dadkan soo socdo oo yiraahdo kama helin qaabka ay dowladda Khayre musuqmaasuq la dagaalayso, sababtoo ah lacag $100,000 ama $1,000,000 oo bangiga aan ka dalbaday ayay iga diideen. hadday sheekada ay tahay motion u qaadaya laga yeeli maayo. marka waa xaaraan, cid ka yeelaysa male. marka meesha waxa ku baaba'aya waa shacabka Soomaaliyeed ayaa ku baaba'aya. tan kaloo muhiimka ah oo aan doonayno dadkana Soomaalida ama qurbaha ama waddanka jooga aan is xasuusina markaa waxay tahay maanta 20 iyo waxa lagu jiraa labada bisha June ayaa lagu jiraa. 26 waa taqaanaan, 1 Luulina waa taqaanaan. marka sanad ka hor waddanka siduu ahaa iyo maanta wax isbedel ah ma dhacay ayaa laga rabaa. haddii aqli aad leedahay inaad isweydiisid, haddii aad tiraahdid maya waddanka 26
june kooda luulyo sanadkii hore siduu ahaa iyo maanta sanadkii hore fiican hadday tahay dowladda shaqadeeda way gabtay wixii doon lagu sameeyay laakiin haddii aad tiraahdid sanadkii hore iyo maanta say tahay isbedel weyn ayaa ka jira marka dadka qurbaha jooga horta sheekooyinkooda muhiim ma ahan dadka waddanka jooga ama waddanka soo arkay ayaa muhiim ah aniga hal bil ka hore ayaa waddanka aan soo arkay wixii qurba joogta ay ka aaminsanaayeen waxaan aan soo arkay waa kaafi kala dheeri wax isku dhibaxtaa maaha waddanka boqolkiiba boqol wax walba ma yahay maya khayra iyo farmaajo marka la doortay ma roob baa soo dayay adduunkii dhan oo soomaaliya isku hagaaga maya qofka isku yiraahdo waa been waddanka wuxuu ku jiraa xilli muhiim ah oo kala guur ah oo xarig jiid ah ayuu ku jiraa xarig jiidka waa muhiim dhinacna dad ayaa ka qabsada dhinacna dad marka dadka laga badiyay hadday dhulka ku dhacaan waddanka sidii la rabay u socnaa marka dadka laga badiyay waa kuwe waa dad oo individual ama waa musuq maasuqa waa gixisada waa cadowga soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda haddii laga badiyo waddanka wuxuu ku guulaysanayaa xarig jiidkii ku guulaysanayaa laakiin waddankii haddii dadkii xarigga dhanka wanaagsan loo malaynayay inay u hayaan ay la saftaan cadowga soomaaliya xariggii waxaa ku guulaysanaya cadowga soomaaliya waddankiina waxaa ka dhalanaya waxa la yidhahdo civil war ilaahay naga haye ama dagaal sokeeye kaasoo dagaal hadduu dhacana waxaa ku guulaysanaya cadowga soomaaliya tuugadii mooryaantii isbaaradii wax walba ayaa soo laabanaya iyo kufsigii iyo dhibaatooyinkii iyo abaarihii waxaan isweydiinaa mar walba ilaahu abaarta naga qaad laakiin waxaan isweydin abaartan sidee noogu timid aan isweydin ilaahay mar walba kor ayuu joogaa waa noo jeedaa marka dadka marka la dilayo masuq maasuq lagu samaynayo dad maanta ku gaajaysan sayidka hoostiisa kaamka ku jira dadna ay maanta degan yihiin maaragtay hotel $1,000 ah $100 ilaahay waa u jeedaa dad kale uma jeedaan laakiin ilaahay waa arkaya marka muhiimadaas ayaa la rabaa in qof walba uu ogaado ma aha sheekadaas iska orado hebel inta hebel qabiilkiisa inta saan qabiil walba oo Soomaali jooga haddii uu qalmo in xil loo dhiibo waxay aataba waa in loo dhiibaa haddii xataa ilmo adeer ay wada yihiin in loo wada dhiiba iyagoo dhan iyaga ka soo bixi kara laakiin maanta qof hadduu ku andacoodo annaga waxaan kalsoonidii aan kala laabanay haddaan nahay boqortooye hebel ama dad hebel kalsoonidii kala laabanay dowladdii waxaas ama motion ayaan ku bilaabaynaa qaranka ayaa waxaas ka weyn sheekooyinkii waa dhammaatay ama dadka ku dooday maxaa hub laysaga aruurinaya oo haddana yurub ku nool bal abley ama toorey ku qaado yurub meeshaa joogtid kadibna ka hadal waayo aniga maanta markaan joogo waddanka ingiriiska oo bariiskayga uu saxsan yahay saanaan u jiifo kama welwelaya ninka xamar ama boosaas oo meelahaas joogay inuu maaragtay istila iyo waxaan leeyahay maxaa iga galay waa meel iga fogo aada ugu dheer adduunkaas uma shaqeeyo dowladda sharciga hadday raacdo hub iska dhaafe wax alla wixii sharciga iyo dastuurka oo qofna aan ugu xadgudbin dowladdu waa inay ku dhaqaaqdaa siday wasiirada ay yiraahdeen iyo amniga ay yiraahdeen oo qofna loo aabayeelin laakiin haddii aad haysatid kuwan hadda motionka ka keenaya Nairobi oo kale haddii aad haystid privilege ah ama nolol ah in lagu waardiyeeyo oo canshuuraha dadka ka dhacay oo dadka aad dishid oo qori aad wadatid cid ka yeelaysa male qaranka Soomaaliya ayaa ka weyn marka awal waa la kala xishoon jiray oo kala baqi jiray qof ka baqay male qaran ayaa jooga hadda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed booliiska nabad sugidda waxba ayaa jooga marka qofkii islaha cideeda ayaa wax lagu sameeynaya mas cid Soomaaliya qofkii wax ku sameeya waa in la qabtaa waa in sharciga la tigsada wax lagu sameeyaa cid gooli loo doonan kara ma jiro dadku waa Soomaali sheekada meesha ku dhamaatay marka dadkan qaylinaya dibadda jooga marka imaateen dibadda meesha Europe ama North America marka imaateen ma cid hebel ayaa sheegateen ma sheegataan waxaan ka dhashay qabiil hebel oo laandheer oo dadka maartay isbaaro dhigto oo dadka dila ama qabiil hebel sidaan maya waxay tirahdeen qaxooti Soomaali ayaan ahay tirahdeen qabiilka qof interest u hay male ama xiisayaaba yaratay ma jirto marka waa mahadsantihiin waxaan idinka codsanayaa inaad sii share garaysaan videoga YouTube naad garaysaan iyadoo title-kan laga bedelay waa muhiim title-ka laga bedeli karo sababtoo ah dad badan ayaan arkay video intay geliyeen YouTube title foolxun geliyay dadkaas waa la dacweynaya waan laga xiray marka title-ka siduu yahay geliya motionka ayaa ku qoran meesha motionka iyo waxaa ku qoran dadka soo wada waa 204 xildhibaan ayaa soo wada magacyadoodana solar portal iyo facebookan ayaan soo gelinayna ku soo qoraynaa bal arka dadkaas
dadka qaarkood shock ayaa ku dhici doona ragga ka dambeeya in ay afgembigan sharciyeysan ay ku sameynayaan waddankeena Soomaaliya ay ku sameynayaan way soo socdaan marka asxaabta kale ee aan ku ballanay magacooda uu dheer yahay naga magac dheer naga aqoon badan waa in ay ka hadlaan iyagana inaysan ka aamusin haddii laga aamuso waxaan caadi u noqonaysaa laakiin haddii hadda laga qayliyo hadda kuwii intay ku dambeeyaan kuwii isdaba ordi jiray Ramadaan ka hor oo la Nairobi dawladda intay ku dambeeyaan meel walba ayaa lagu soo qayliyay shacabkii ayaa ku soo qayliyay banaanbax ayaa lagu sameeyay waxay yiraahdeen waa iska aamuseen marka kuwaana sidaas oo kale laakiin haddii maanta aad ku taageertid qabiil aad ku taageertid qarankii Soomaaliya ayaa meel ka baxay Soomaalima sheegan waxa la baxda qabiilkaaga cidiina la bax hebel laan kan la bax markaas qabiil hebel laan la bax qabiilkaaga noqon markaa waddanka soo sheegan Soomaalima sheegan marka Soomaalinimada ma ahan kaliya gaajadan hadda haysay dhibkan haysa ma ahan Soomaalinimada waa wax maartay soo jiray oo sii jiri doona raggaana shacabka Soomaaliyeed meel alla meeshay adduunka ka joogaan qaasatan meesha ugu muhiimsan waa Soomaaliya waa in ay ka banaanbax weyn laga sameeyo dadkan aan laga yeelin dawladda Soomaaliya xataa hadday awoodo in sharci legislation laga soo saaro sababtoo ah aqalka sare sababta loo sameeyay waxay ahayd in dadkan lagu ilaaliyo laakiin hadda aqalkii sare qaar ka mid ah ilaan hungurigan wax walba ay ka weyn yahay ayaa lacag loo ballan qaaday dibadda looga soo ballan qaaday waxa la yiri dawladda Soomaaliyeed hal rido annaga dooni mayno dawlad Soomaaliyeed oo 4 bilood jirta in hadda dib lagu bilaabo laakiin dawlad Soomaaliyeed oo hal bil jirta haddii lagu arko musuq iyo sharci darro waa in laga saaraa oo mooshin lagu qaadaa laakiin ma doonayno dawlad oo waxaysan halaynin waxba aan halaynin waxba aan u jeedin la yiraahdo kama helin qaabku oo kiyalaha u gashay khayr motion ay u qaaday taas ma soconayso anagana ma yeelin anaga markaas waxaan sameynaynaa inaan difaacno waddanka aan difaacno ama aan ku difaacno hiil iyo hoo aan ku difaacno difaac kaliya ma aan qori aad qaatido meel ay sagtid maahan shacabku waa inay banaanbax nabadgelyo ah magaalada ay xiraan oo airport ay ka xiran kan loo ogolaan in waddanku soo laabtaan haddaysan la imaan wax cad oo concrete ah oo loo jeedo qof walba u jeedo ay la yimaadaan dadkan yaa laga yeelin marka hadda waxyaalaha kaliya ee dadka ay ku faraxsanayaan waxay ahayd in dawladdan cusub markay timaado la iloobi doona 231 xildhibaan ayaa dooratay yaa u saxiixday u xaqiijisay khayr waxa kaliya laga baqay waxay ahayd alxamdulillah motion dambe iyo dawladda shaqo qabanaysa laakiin maanta haddii si sharci darro ah motion lagu qaado dawladda khayr maxaa ka dambeeya imaanay yaa noo imaanay marka yaa diiday kan kale ka imaad xataa ninka Soomaaliya ugu wanaagsan ugu nadiifsan hadduu yimaado berrito waxaa dhacaysa in qolo kale aysan ka helin qaabkiisa sababtoo ah cadaalad ayuu ku shaqaynaya waxaa leeyahay kan privilege-kii aan haysan jiray waa naga joojiyey lacagihii safaradii dalxiiskii dahabkii guryihii waa naga joojiyey waxaan doonaynaa motion aan ku qaadno motionkan ma ahan dan Soomaaliyeed iyo xisaabtan ma ahan motionkan waa personal gain wax la yiraahdo qof wuxuu heli waayey uu ku dhaganaa ayuu waayey ayay doonayeen inay soo xishtaan ma ahan Soomaalinimo hadday tahay bal hala hadlaan warbaahinta la hadlaan adduunka warbaahinta way furtay meel walba hala hadlaan warbaahinta hay yiraahdaan sababta dawladda khayr aan ugu qaadayno emotionkan waxay tahay ay bi adduunka wax walba cadaalad waraaq soo dabcan A4 ah hay yiraahdaan waraaqdan oo kala keenan hay yiraahdaan ha ku soo qoraan wax walba ay yiraahdaan dawladda maalin hebel bishii hebel laga bilaabo markuu soo fadhiistay waxa ku dhuntay lacag halaas waxa lagu helay halaas wuxuu bixiyay intaas oo passport wuxuu sameeyay inta wuxuu canshuur ka qaaday inta wuxuu dhul siiyay ha keenan waa cadaalad kadibna waxaan u banaan baxaynaa in khayr uu ka dego farmaajo uu ka dego oo la yiraahdo nabadayna dhaafa laakiin Nairobi aan tagaynaa dawladda waa inaan la xisaabtana qaabkeeda ka meel waarideena ma yeelin annaga dadka ugu badan waxay leedahay South West Koonfur Galbeed waxay ka yimaadeen dhulkan Koonfur Galbeed South West la yiraahdo iyo Hirshabeelle iyo meelay ahaadaan ay ka yimaadeen dadka oo hadda motionka wada iyo kalmadii meelahaas marka qof walba oo meeshaas ka tirsan ee Soomaalida ay ka dambayso waxa la doonayaa in la hor istaago sheekooyinkaas ay soconin hadday socoto waddankii oo aan islahayn xoogaa progress ay sameeyay ama hor u socdaa waxa ku dhacaya dib u dhac weyn ay ku dhacay hadduu ku dhacana waxay saameynaysaa qof walba ma ahan kaliya kuwa Soomaaliya joogay masaakiinta kuwa ugu nugul way saameynaysaa laakiin qof walba Soomaaliya dadkii hadda xilligan kuleelaha fasaxyada ah oo Yurub oo caruurtoodii waddanka u xeshan lahaa way saameynaysaa waddanka kama deegi kartid maanta Muqdisho daa ka soo duushid waxaad arkaysaa magaalo walba tuulo walba diyaarad ay u dhoofaysa waddanka isbeddelka ayaa ku socda waddankii corruptionkii ma ka dhamaaday kama dhamaanin
dhibkii iyo dagaalkii guryihiilaysan kama dhammaanin laakiin wax walba waqtiga u baahan yihiin haddii laakiin aan ku fikirno dhib kastoo waddanka ka jira farmaajo iyo khayra iyo wasiirihiisa ka mas-uula beenaan isu sheegayna wax walba waddanka ka jira annaga oo soomaali ah ayaa ka mas-uul ah xallin karna shacabka soomaaliyed ayaa xallin kara dowladda waa shacabka ma ahan dadkan hadda jooga oo tegaya dowladdii hore bal haddaan ku weydiy hadda wasiirkii xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqi dowladda hore ma xasuustaan karti qof xasuusta male xataa kan maanta jooga haddii laga dejiyo qof xasuustaan kara male laakiin shacabka soomaaliyeed ma guurayaan way joogaan marka waa mahadsantihiin waxaan kusoo gabagabeynayaa videos kale ayaan keenaynaa aniga iyo rag kale ayaa jooga oo maaragtay arrimahan naloo xil saaray dhalinyarada iyo odayaasha isu xil saareen waan ka hadlaynaa wixii ra'yigiina aa ku darsan kartaan laakiin muhiimaddu waxay tahay dhegaha lagu hayo indhahana si fiican loo furo dadkan ha la fadeexeeyo haddii wax cad oo la taaban kara la yimaadaan ha la soo dhaweeyo ha loo sacabtumo dowladdana ha la yidhahdo nabaday laakiin hadday sidan ay ku socdaan oo lacaga dibadda laga soo siiyey waddamada carabta iyo waddamada dariska ay soo siiyeen ay rabaan qaranka inay ku burburiyaan qof walba inuu ishafuro dadkaas ha laga banaan baxo yaa laga yeelin recessionka baarlamaanka wuxuu bilaabanaya iidda kadib marka barnaamij badan ayaa laga sameynaya ogaada waxaa kaloo lasoo bandhigaya ragga maaragtay nairobi qasa ka wada ee lacagaha soo qaatay ayaa lasoo bandhigaya insha allah waa mahadsantihiin intaan is arkin waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wa antum bikheer min alcaydiin qof walba ilaahayna waxaan ka baryaynaa maaragtay labadan maalmood ee ramadaan ka hartay inuu nagu aadiyo laylatul qadarka isla markaana waddanka maaragtay nabad ilaahay u keeno sababtoo maanta nabad waddankeena wax u dhaama ma jirto nabad u keeno dadka madaxda ee waddanka haysa madaxdeena madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dadka kale haddii ay noo wanaagsan yihiin oo waddanka dantiisa ay wadaan ilaahay unoo sii hayo haddii waddanka ay dhibaato u keenayaan oo cadowga soomaaliya waddanka ay usoo horseedayaan oo corruption iyo musuq maasuq iyo cadaalad darre ay ku jiraan ilaahay naga kaxeeya taas ayaan ku doodaynaa ma ahan meeshan in dowladda habeen imaan loo sacabtumo wixii wanaagga iyo soomaalinimada ku jirta ayaa naga wada dhexeeya cadowga soomaaliya ee meelaha ka qaqayliya ee qub iqaada ku hayana waxay yihiin male marka kuwaas dhig jalo lama siiyo looma jawaabo waxba lama dhaho waa laga dhaqaajiya qofka markaad la hadlaysid ama aad u jawaabaysid ama xusumaysid miisaankiisa iyo afkiisa waxa kasoo baxa ayaa la eegaa bes laakiin qof maaragtay qabiil ka hadlaya ama qabiil caynaya ama qof bani aadan caynaya ama ku samaynaya iyadoo ramadaan lagu jiro ama waqtiyada kale oo caadiga ah qofkaasoo kale sida keliya ee looga badin karo waa loo aamusaa afkaaga waa af daboolan dahab waa maamaha soomaaliyeed marka waa mahadsantihiin ciid mubaarak mar labaad intaan hawada kulmi doono waxaan leeyahay anigoo ah cabdinaasir والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.